deeqdan geel oo ugu talagashay xildhibaanad Faadumo Faarax Nayn oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee magaalada Baardheer ee gobolka Gedo waxa ka gudoomay wakiilka deeqdan taliyaha ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee magaalada Baardheer Dhamme Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow iyo saraakiishiisa علي دبد أحمد أو وكيل كديقدان لو سو وكيشي أيها كور بحي وجود كديقدان ساكن أنا دي صوب بوغضو تالي وحان وكيل كاهي أو جيران ساك أن وضو إيسو ديبي حلبان فاضمة فارح آدن فاضمة ناين حلبان كي ديغان دورشي دي سو ايهي دقمدان بار ديري كونا فردية كورسيغا سومديسو تاهي هوب 123 ama 123 waxaan kaga sidaa salaan iyo sooriyada waxa weeye salaantaas iga gaarsiibay tire ciidamadii iyo deegaankii insha Allah waxa weeye geerana sida ayada u guddoontaan ma raba xildhibaankan uu soo salaamahayay adoo alla yiraahdo fariintaas aan idin waday wabillahi tawfiiq taliyaha ururka 49aad qaybta 43aad ee magaalada Baardheer ee gobolka Gedo Dhamme Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow ayaa dhankiisa ka madcaliyay deeqdan ay xildhibaanada ugu talagashay ciidamada qaranka waxaan u mahadcelinaynaa Ali Dubad oo wakiilka ah xildhibaan Faadumo Faarax Aadan Faadumo Nayn oo soo wakiilatay inuu geelan guddoonsiyo ciidanka fadhigiisu yahay degmada Baardheer ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad kuwaas oo ay uga soo dhigtay ciidanka Sooriyo ee ku soo xasuusanaysa jiritaankiisa iyo ciidanka waxqabadkiisa annagana uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay xildhibaankii jira Allah ka dhigo xildhibaanada kalena si ay ugu soo daydaan ayagana waa baaqasa oo gaarsiinaynaa oo deegaankoodii iyo ciidamadoodii dadkooda soo xasuustaan geelaasna waxaan leenahay annagana dacaamkiisa shifa Allah nooga dhigo ayadana sadaqadeedaas maxaan ku raadaay iyo sooriyadeedaas Allah u aqbalo aad iyo aad baan mar saddexaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinaynaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka magaalada Baardheer ee gobolka Gedo